هشانو هجيسك ويركان محادر بصو هشانو هجيسك ويركان عدي وحدود ليسي عدي أغرتا مكانتي محادر بصو هشانو هجيسك ويركان محادر بصو هشانو هجيسك ويركان ليسكا هليه يدانو لو سلغو جرايو ميدوا وضا هيانو هرالو سي سعدايو نوذا قاربا وبحي هرالو سي سعدايو نوذا قاربا وبحي daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saareyno in ka badan 200 oo askari oo cusub oo ka mid noqonaya booliska dowlad goboleedka Jubbaland oo magaalada Kismaayo loogu soo gabagabeeyay tababar احذي قبيلكيو ما أقانو لالوش حارانتنا ما أقولي احذي قبيلكيو ما أقانو لالوش حارانتنا ما أقولي شرعيقان أكيا أمنيقيو نبدا أتوقو شقيا magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa saddexda bishan loogu soo xiray tababar in ka badan 200 oo askari oo cusub oo ka mid noqonaya booliska dowlad goboleedka Jubbaland kuwani waa dufcadii labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland loo tababaray waxa ayna ka qayb qaadanayaan sugidda deegaanada Jubbaland si bulshada ay u helaan ciidamo tababaran isla markaana u shaqeynaya iyaga munaasabadaasi waxa ka soo qayb galay ku xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Wanyota taliyaha booliska Soomaaliya Saraayaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Lugu Dheere iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiiro kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland waxay ciidamada cusub ee tababarka loo soo xiray goobta ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen ayadoona madaxdii ka soo qayb gashay aad ula dhaceen bandhigooda waxaan xusid mudan in ciidamadaasi ee gaardiska meesha ku mariyay ay ku jireen dumar gaaraya 27 oo ah markii ugu horeysay oo gabdho intaan la ay ka mid noqdaan booliska dowlad goboleedka Jubbaland ayagoo la arkayay qaabka ay salaanta ay u dhiibayeen
qaybtaas waa qaybtii kufsi ninkii gabadha kufsaday haddana waxaa xigi doonta qayb kale oo qaabka isdifaacidda adiga ka soo haray ma isla dabar jirnaa duulaan iyo weerar dagaal iyo colaad duulaan iyo weerar dagaal iyo colaad dadku way ku daaleen dabayaaqo weeyaan dabadiga ka soo haray ma isla dabar jirnaa dariska u sitaa doqonta uga hiilinaya aniga dadkayga dabka iyo dariska u sitaa doqonta uga
dariseenta aan ku bare dacwal baaba iska eego boliis dadba baad tahay nabadana daneeyo deegaankaad ku nooshahay dariseenta aan ku bare dacwal baaba iska eego boliis dadba baad tahay nabadana daneeyo deegaankaad ku nooshahay bal aan wada daawano khudbadihii madashaasi ay ka jeediyeen madaxdii ka soo qayb gashay madashaasi dugsigan hadda maanta aan joogno waad aragtaan markii hore waad ka soo qayb gasheen tacfidii maxaan ku ka horeysay tan ka horeysay waxaan isku taxallujinnay muddada 3 bilood inaanu wax ka soo saaro ciidanka meeshan hadda diyaarka idinku aad taagan booliiska waa 202 qof 175 waa rag 720 waa dumar dugsiga howlaha uu u baahan yahay baahidiisa waxaa ka mid ah qaarta dhaxantii iyo waxa soo baxay biyo la'aan maxaan ku idhaahdaa dayac fara badan oo maxaan ku idhaahdaa dhismihiisa iyo wixiisa ka muuqda waxa weeye waxaan hadda maxaan ku idhaahdaa rajaynaynaa dus Ilaahay ma inaanu qoraal ku soo gudbino wixii baahidiisa dus Ilaahay ma aha oraanin ugu soo gudbino mas'uuliyiinta aadna waa u mahadsantiin waan soo dhaweynaa wassalaamu calaykum yaa ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland General Aadan welcome waan inaan ka bixiyo ciidankan maanta hortiina taagan markaan warbixin ka bixiyo wuxuu ahaa markii aan u xareynay 203 askari buu ahaa 203 askari aan xareynay 200 waxay ahaayeen qorshihii koorsada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ee loogu talagalay in la xareeyo 300 askarina waxay ka dhimanaayeen koorsadii koowaad ee ka baxday dugsigan tababarka waxaa tababarka dhamaysatay 202 askari hal askari oo kamidana waan ruqsaynay waxaan u ruqsaynay dhaqan xumo ciidankan markii aan xareynaynay 70% wuxuu ahaa shacab aan horay u soo marin wax tababara ayna u badnaayeen dad aanu aqoon ku xulanay si aan u tayayno ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland sidii ay tababarka qaadanayeen oo koobnayd runtii waxay qaateen tababar ku filan ayay qaateen taas oo aan uga mahad celinayno taliyaha ciidanka booliska oo si degdeg ah uga soo jawaabay codsiganagii baahida aqooneed ee macallimiintii aan uga baahnayd uu si degdeg ah noogu soo diray waxay marayaan heer aad u wanaagsan oo ay gudan karaan waajibaadkii loogu talagalay run ahaantiina waxay qaateen markii koorsadii ka horeysay dugsigan waxay uga baxeen iyagoo qaatay oo kaliya tababarka asaasiga laakiin koorsadani waxay kaga duwan tahay waxay qaadatay macal xirfadihii specialistiga oo boolisku uu ku shaqeynayay bay qaateen inkastoo aan la dhihi karin way ku filan yahay tababarkaas muddada oo gaabnayd awgeed haddana waxaan leeyahay maanta aqoon ay ku shaqeyn karaan oo ay bulshadooda ugu adeegi karaan ayay leeyihiin waxaan tusaale ahaan u soo qaadanayaa ciidankan macallimiintii tababaraysay iyo taliyihii dugsiga aqoontooda heerkii ay gaadhay qaar ka mid ah oo ilaa 10 gaaraya oo isugu jira rag iyo dumarba codsi ah waxay soo gudbiyeen inay macallimiin ula haraan oo ay macallimiin ka noqdaan dugsiga soo khudbadiisa qaato Amisom Police Mr. Brigadier General Anan Bilai. So I want to welcome Amisom Police Commissioner and Brigadier General and Anand Bilai. More than 3 months ago, we started the process with the selection, recruitment, vetting of these police officers that you see standing before you. It was a strenuous process with strict selection criteria that was used to select these officers. Today, after the 3 months of intensive basic training, they are here ready to graduate. Well done. The training that you've received is not completed. Amisom will continue to provide mentoring services and training
whilst you're at your police stations and in the field. We'll provide the on-the-job training for you to ensure that you receive the necessary policing skills so you can perform your work effectively. We will also try and support you with your logistics needs to help you perform your functions. I know the previous speaker stated that he would like to see more specialized training, but from MSOM's side we believe that you still need to at least be out in the field for at least another 9 months, receiving on-the-job training before we can select any for specialized training. So that will come in time. So we look forward to providing you with these trainings in order that you can effectively police your communities in the Jubaland state. I would like to thank the Jubaland government for providing us this facility to train these police officers, and I'll also be failing in my duty if I do not recognize the donors, DFID, for funding this project, and UNOPS for providing the necessary logistic support. I would also like to thank the SPF Commissioner for providing his support in terms of the trainers that he provided, as well as the band. The Emerson police instructors for doing a very good job here. And lastly, for your students, I would like to wish you all the best in your future career in the police here in Jubaland, and also to wish you all well in ensuring the safety of your communities in this area. I thank you. waxaan u mahad celinayaa mudane madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha saraakiisha ciidamada militariga iyo mudanayaasha madaxa protocolka dooiga qaldamay madaxa ku xigeenka AMISOM maanta waxaan halkan ka soo xiraynaa tababar 200 iyo 2 askari kuwaasoo macnaha meeshan ku qaadanayeen tababarkoodii asaasiga ee boolisnimo tababarkaas kuma filno sidaad macnaha ogtihiin tababarka asaga ah sidaa hore loo sheegay misana baahida loo qabo waxay u baahan yihiin ciidamada booliska si loo siiyo macnaha xifrado kale macnaha tababaro si ay macnaha waajibaadkooda u gutaan waxaan mar labaad u mahad celinayaa macallimiinta Soomaaliya iyo macallimiinta AMISOM taageeradii iyo xoogii faraha badnaa oo ay galiyeen macnaha ardaydan ayada waxaan isleeyahay maanta anigu farxad gaar ah waxaan ku dareemayaa dugsigan isagoo bacaad ah baan eber ka bilaabay bal dawladnimo inay bala leedahay halkan markaan keenana waa laga bedel haddana waan ku faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay warshad aan kala go'ayn oo maalin walba 200 ka soo boodayso Soomaaliya waa waxay ku faani kadho Jubaland waa waxay ku faani kadho taliyaha booliiska waxaan leenahay halkan warshad baa kaaga socota haddaad gali lahayd international community iyo haddaad adigu jeebkaaga xoq lahaydba ogow xeradan odayaaf ku kala haysta waxaan codsan lahayn in loo dhaqso lahaado oo loo dhiftan lahaado meel kasta mar inta haddaanu joogno waa kaaga mahad celinaynaa Jubaland qaybteeda waa qaadanaysaa fiiri maalinta aanu bilaabaynay muddo dheer baan nala lahaa waa la qabanaya soo gala airportka gudihiisa ma suurtoobayso madaxweynuhu wuxuu yiri maalintii dambe cirku baa dilaamay waxa ugu horeeya annaga bixinayna ee bilaaba waan bilawnay iska wuxuu qabso iyo lacagtii baan ku bilawnay maanta wata kooraskii ka horeeyay ballantu waxay ahayd mudane taliye waana la kala noqdaan u malanayaa lacag 1 milyan oo meelaha wareegaysay in dugsiga kan laga dhigo dugsi konkureed oo barmareeda ma naqaan meel ay aaday lacagta waxaan codsan lahayn in loo soo cusho dugsigaanu sidaan kuma sii jiri karo roob baa imaanaya abaar baa imaanaysa
de hadda dowladdii doorashayga ku mashquulsan tahay oo hadda tabarna looma hayaa laakiin adaa tabar noo hayaa adigu waa dooran tahay waxaan kaa codsan lahaa ciidankan booliiska meeshaan uu hadda ku jiro waxaan codsan lahaa in laga bedelo laga caawino I know some of your partners who are sitting your besides they were very busy how to support the Somali police and still we are chasing them DFED and as well also the partners who are today is present here still we are saying on behalf of a Jubaland state we are not we need you still we need your program we need your support the police they promised to really fulfill their job properly but I'm requesting their needs what you have done is great but the remaining we are requesting you thank you very much aad baan ugu mahadcelinayaa dhacdadan taariikhiga ee maanta ka qayb qaadanayaan dabadeedna aan ku dhiirigeliyo in ay booliisku yihiin ciddii sharciga xoojinaysay laakiin waxaan rabaa inaan xuso sharciga la xoojinayo inuu yahay shuruucda maxkamadaha oo maxkamaddu markii ay go'aan gaarto aysan dowladdu gacmo kale lahayn waxaa kaloon doonayaa inaan xuso dadka shacabka ah ee reer Jubbaland ee magaalooyinka degan ee booliisku ay ka dhex shaqayn doonaan inay u baahan yihiin in laga celiyo qashqashaada iyagana aan markaa lagu xadgudbin xeerar baa jira ee qofka lagu xiri karo waqti lahayn karna waa jira procedure la marna waa jira iyo waxyaabo ay waajib tahay in la sameeyo anigoo marka ka faa'iideysanay munaasabadan waxaan jeclahay inaan xuso in booliiska dowlad goboleedka Jubbaland ay laga maarmaan tahay markii ay ka ilaalinayaan dadka qashqashaada iyo crimeska iyo dambiyada markay ka ilaalinayaan isla markaana inay qalbiga ku hayaan laftooda in ay tahay sharciga inay ilaaliyaan maxkamadaha go'aamada ka soo baxa ay fuliyaan shacabka ay gacan qabow ku qabtaan tuugada iyo dadka qashqashaada wadana ay gacan adag ku qabtaan anigoo sidaa iri tuugada lafteedu waxay leedahay xuquuq bay leedahay dambiilayaasha laftooda procedure la mariyay leeyihiin taana waxa gooya dastuurka u go'an u dagsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo shuruucda maxkamadaha yaala taana inaan dhiirigeliyo ayaan doonayaa again I would like to thank the donors with TFID and the UK government at the forefront and the United Nations agencies that have provided this aid that made this possible. I also would like to congratulate and be grateful to the Somali police force and the Somali federal government as a whole. We will, of course, forward our demands on strengthened rule of law programs and strengthened justice system throughout Jubaland state of Somalia. Thank you very much. wasiirka cadaaladdu waa mahadsan yahay Mr. Hirsi haddana waxaan soo dhaweynayaa AU representative ambassador Lady Amioto Aisha Lul. Welcome, please. As you have heard, I'm Lydia Wanyoto Mutende. I'm the deputy head of Mission AMISOM and deputy special directive of the chairperson of the African Union here in Somalia. A total of 202 police officers made up of 175 males and 27 females will graduate after 3 months of strenuous and religious basic recruit training. The police commissioner says you need 9 more months of on-job training, but this is the beginning of standing up Somalia in the rule of law. I see this opportunity to congratulate graduates who have accepted to be part of an institution charged with the responsibility of preserving the internal security of Jubaland state of Somalia. And for that matter, Somalia as a whole, and providing protection, safety and security for their communities. This indeed is not only an enormous task, but is calling that must be discharged with patriotism and the highest levels of professionalism. From the smartness and output at this graduation parade, one can tell that these recruits have all worked extremely hard during the 3 months training of trainers. taliyaha ciidanka booliska federaalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan. Welcome, taliya.
tababarkii labaad oo ay fuliyeen tababarkiisa amisom iyo Somali Federal Police oo ay deeq-bixiyaasha UK David iyo UNOPS oo ayadana lahayd fulinta aan ugu mahadcelinayno runtii waxaan idinku soo dhaweynaa haddii aad tihiin dadka trainingka maanta meeshaan ku qaatay inaad ku soo biirteen booliiskii Soomaaliyeed gaar ahaan booliiska goboleedka Jubbaland waxaan idin leenahay ku soo dhawaada tiro idinka fara badan oo laandheeryaal aad ka tirsan tihiin waxa laga rabana waxay tahay inaad ogaatid booliis waa siis waa tababar booliis wuxuu u adeegaa bulshada markaad bulshada u adeegaysid waxaa laga rabaa dhaqan ahaan muuqaal ahaan aqoon ahaan qof ku filnaan kara inuu u adeego bulshadan oo ka cilmi badan ka xoolo badan ka caqli badan ka dhib badan marka haddii ilaahay idmo maanta waa maalintii tababarka idin xirmay daraad bay ayd markaan halkan tababarkan idinku furnay wax la tiriyay way fududahay maanta saantiina isaad sulu qaadaysaan way habboon tahay laakiin waxaan dardaarankeena uu yahay tababarka waa joogto hadda waad galaysaan shaqaa bilaabaysaan waxaadna kolley shaqooyinka ugu horeeya aad bilaabaysaan oo noqon doontaa inaad ka qayb qaadataan doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedka Jubbaland ka dhacaya ayaad ka qayb qaadan doontaan waxa markasta maskaxda aad ku haysaan wastaciinu bis-sabri was-salaati wa hadii adiga aadan ilaahay ku xirneen ummadan wax badan uma qaban kartid marka si aad ummadan wax badan ugu qabato ummadda waa dhiban tahay dhib badanaa la soo maray qofkii ka bixin lahaa adiga waay koofiyadan buluugan waay goodirkan waa qofka ka bixin lahaa dhibka jira maanta u adeegi lahaa inta tabarta jiracsan marka runtii salaada hal la tukado dadka loo adeegay qoriga lagu dhiibi doono iyo uniformkan lagu siiyay waxa soo dhan waa hantidii dawladda waay maamul goboleedka Jubbaland kugu la xisaabtamay waxa way dadweynaha kugu la xisaabtamay qoriga waxaad u qaadaysid waa inaad ugu adeegtaa dadweynaha ma aha inaad adiga kaga xoog badan tahay oo booliis tahay booliis waxa waaye inuu u adeego bulshada waay waxaan rabaa inaan halkan aan ka salaamo madaxda Jubbaland halkan fadhisa oo laga yaabo qaarkood inaysan la soconin waqti laga joogo 40 dhowr maalmood ka hor markaan halkan imaanay waxaan bilawnay inaan tababarno dhalinyaradan baanbeeda maanta hadda aad ku aragteen meeshan waxa ay sameyn karaan runtii anakoon cid kale aan la kaashanin waxaan bilawnay inay maanta tumaan hortiin aad ku aragtaan laakiin maxaa ka maqan qalab baa ka maqan waxaan rabaa marka inta laga ballan qaado maanta in qalabkooda aan isla gadno idinkana keena anigana waa keenina waa $1 isku darno waa tababarka loo xiraayo ma qola martay noo timid ma anaga mas'uuliyiinta Jubbaland adinka alladina hadlaya inta soo dhan way la hadlayso adinka tababar baa idin dhamaaday ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku soo biirteen u soo tababarateen maanta laga bilaabo ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka tirsantii marka hore waxaan idinka rabaa
inaad ku soo kordhisaan waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo nabadda taageerayo, nabadda u hiilinayo, cadaaladda u hiilinayo, bulshada u hiilinayo, horumarka u hiilinayo, dhinac walba inaad soo kordhisaan baa laydinka rabaa. bariiska waa saaxiibka bulshada, sharcigana u hiilisaan ilaalintiisa iyo fulintiisaba. annagu waxaan ballan qaadaynaa oo idinka ballan qaadayna wixii karaankayga inaad ila qabanno laga bilaabo maanta. tababarkiina wixii aad soo barateen inaad bulshada la dhex gashaan, wanaag uga shaqaysaan, cadowyada badan ee bulshada dhexdeeda ku jira inaad kala dagaalantaan. waad ogtihiin kooxaha nabadiidka ah, waad ogtihiin waxyaalo kaloo kasii daran. sharciga iyo kala dambeynta inaad soo celisaan ayaa maanta laga bilaabo ku soo biirteen. bahda soo celinta sharciga iyo kala dambeynta ayaa ka mid tihiin wixii maanta laga bilaabo. sidaa darteed waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan, qalbi furan, niyad furan. si gaar waxaan mahad rabaa inaan ugu celiyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed Sheekh oo dadaal aad iyo aad u fara badan ka muujiyey. waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo annaga reer koonfur baan nahayo aad mahadsantihiin. Jenaraal Maxamed Sheekh aad iyo aad u dadaalay waxqabadkiisa iyo dadaalkiisa ku saabsan tababarka dugsigan. waxaan kaloo rabaa isagana inaan u markhaati kaco Jenaraal Darwiish. warshaddan ayaa gacanta ku haya sidaan gacanta loogu haynaya. haddaan dib ugu laabto taliyaha ciidanka booliiska wax fiican buu na tusay. wuxuu yidhi warkawaaday muusikada baambeyda Jubbaland waa idin tababaray. ninku iyo waxaan ku baray too kuu faanay Jenaraal maasanta horta annaga waxaan kaa ballan qaadaynaa dharkii hadda horteenu ku ballan qaaday. dowladda dhan baan nahay annana inaan qalabkii gedayna ku ballan qaadaynaa, ama 20 ha noqoto ama 50 ha noqoto. waxaan ballan qaadaynaa kooxda tababaray, kooxda la tababaray ee muusikada ee hadda maanta horteena la keenay ee taliyaha dharkooda oo soo diyaarinayo. annana waxaan soo diyaarinaynaa qalabkii ay ku howlgelayeen. qiimo kastaa ku baxa waan gelaynaa. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam waxaan soo xiray laga bilaabo saacadan tababarka dugsiga waa xiran yahay. tababarka dugsiga waa xiran yahay saacadan laga bilaabo. leyli tababar matiin ciidan boliis baatiin laga bilaabo saacadan dugsiga tababarka waa xiran yahay.
هوبي هوبي هلا يالو بوليسكي يا شعبي هلا يالو هوبي يا هوبي